dhegaystayaal waa barnaamij toddobaad oo ku saabsan Subscribe to my channel taxanaha and also press sheekooyinka this bell qur-aanka. icon so you never miss any new Tanina updates waa because whenever sheekadii we Nabi upload new Nuux, video you will get a nabadgelyo notification korkiisa on your ha phone. nebi ibraahim ayaa masar u ambabaxay sodcaalkiisana waxaa ku weheliyey nebi luud maal aan tiro lahayn iyo xoolo fara badan iyagoo wata ayay halkaa ka soo noqdeen arlada muqadaska ah ayay soo gaareen waxayna kala celin waayeen adhigii iyo xoolihii kale oo ka batay muddo kadib luud baa ka guuray meeshii uu adeerkiis ibraahim la deganaa wuxuuna ku furay oo degmaystay magaalada saduum halkaas waxaa ku dhaqnaa dad anshaxoodu uu aad u xun yahay oo niyaddoodu liidato wax dembi ah kama dhowrsan jirin xumida ay falayaanna iskama reebi jirin magac xumo ayaa u faaftay waxayna ahaayeen duul wanaaggii laga mayray oo aan inna wax khayr ah lagu ogeyn waddada ayay goyn jireen saaxiibkoodna way degi jireen dadka sodcaalka ah ayay hareeraha dhabbayaasha u geli jireen markaas bay intay isugu yeertaan ka dhici jireen xoolo iyo hanti kaleba wax alla wixii ay sitaan waxba diini kama celin jirin xishoodna waxba uma ay aqoon nin wacdiya iyo nin waaniyaba ma ay maqli jirin markii dambe ayaad waxaad mooddaa wixii dembi ay fali jireen iyo wixii ay xumi ku kici jireen inay ku fillaan waayeen markaas bay wax ka daran oo ay sameeyaan baadi goobeen waxay soo rogeen foolxumo iyaga ka hor aan cidina falin iyo facshar aan ruuxna ku dhiiran dabaad bay bannaysteen labka ayay u galmoon jireen dumar oo idilna faraha ayay ka qaadeen mana hungurayn jirin wuxuunbayba ahaan lahayd haddii ay hooggooda qarsadaan ama ay isku dayaan ceebta iyo xumaha inay faraha kala baxaan ayaan darradooda taas way garan waayeen weliba dadka ayay ceebtaa ku sadullayn jireen waxay ku dhiirin jireen inay sidooda yeelaan oo darka ay ka cabbeen laga wada cabbo baadinimadoodii ayay ku madax adeygeen ilaa ay dembiyadii arlada ku faafeen oo foolxumada rag u tegidda la wada jeclaysiiyey haddaba reer luud markii ay hanuunkii baadinimo ka doorteen markuu shayddaan siduu doono uga adeegay ee u maamulay gacantana ku dhigay xumahana u qurxiyey markaa ayuu eebbe nebi luud u waxyooday wuxuu ku amray cibaadada eebbe inuu ugu yeedho ayna ka reebtoomaan foolxumada ay ku kacayaan farriintii eebbe ayuu si cad ugu sheegay ha yeeshee waxay kala hor yimaadeen dhaga tufan indho aan wax arki karin iyo laabo awdan xumihii iyo qooqii ay ku jireen ayay sii dabaasheen waxay ka hari waayeen baadinimadii iyo mugdigii ay ku dhex jireen naftoodii sharta badnayd ayaa dabadeed ka dhaadhicisay rasuulka loo soo diray inay eryaan markaas bay isaga iyo intii rumaysayba u goodiyeen waxay ugu dhaarteen inay ka masaafurin doonaan magaaladooda dembiga ay u haysteen wuxuu ahaa oo keliya xumidooda inuu ka fogaaday oo foolxumadii ay ku kacayeen uu isagu ka hufnaaday waxay dembi uga dhigeen facsharkii ay iyagu samaynayeen oo uu ku ceebeeyey xumaha oo uu la qooshan waayey waddada toosan ee ugu yeerayo iyo jidka hanuunka ee uu ku soo duwaayo kolkuu arkay inay ka sii jeedaan oo aanay warkiisa oo dhan xiise u haynin ayuu cadaabka eebbe ku cabsigeliyey hase ahaatee kama ay koobin goodigiisiina wayba ku jeesjeeseen waano iyo wacdi ayuu la dul fadhiistay cilmi dambeedka xun ee sugaaya ayuu uga digey ha yeeshee wixii laga waaninayey way ka hari waayeen wayba sii jeclaadeen oo ku sii dhegeen kuna mintideen ugu dambaystii waxay ku cadhiyeen cadaabka uu ugu goodiyayo inuu u keeno oo ciqaabta ay mudan yihiin uu ku rido kolkaas buu luud wuxuu eebbihiis weydiistay qoladaa xaqa diiday inuu uga hiiliyo cadaab xanuujiya inuu u keeno madax adeegooda iyo gaalnimadooda inuu ka abaal mariyo inuu ku ciqaabo xumaanta iyo gardarrada ay ku kacayaan maxaa yeelay waa cudur aan daawo lahayn oo faafiddiisa aad looga boqo waa xubin jiran oo in la iska gooyaa ay lama huraan tahay kuwa arlada xumaha ku hallaynaya sow iyaga un maaha sow iyaga maaha faafka diinta eebbe kuwa hor taagan sow iyaga ma aha kuwa waddada wanaagga indhaha ka datay ee jidadka hanuunka dhabarka u jeediyey rabbi ducadiisii ayuu aqbalay tuugmadiisii ayuu ka yeedhay magaaladaa dadka deggani daalimiinta ahaayeen ayuu u soo diray malaa'igtiisa si ciqaabta ay mudan yihiin ay ugu ridaan ha yeeshee ka hor intii aanay halkaa tegin ayay sii mareen oo reer ibraahim ku hoydeen isna wuxuu u qaatay qolo socoto ah inay yihiin
kolkaas buu u soo dhigay cunto marti lagu sooro tii ugu wacnayd. farsa ma ay saarin. kolkaas buu ka shakiyey oo cabsiye ka gashay. waxay ku yidhaahdeen, ha cabsan. intii ay la joogeen ayay uga bashaareeyeen wiil aqoon badan oo isaga u dhalan doona. u malayn maayo nebi ibraahim inay cabsidii ka ba'day ama uu qalbigiisu hadalkaa ku xasilay. sidaa darteed ayuu sii warsaday kuna yidhi, kuwiinaan la soo dirow, arrintiinnu waa sidee? kolkaas bay ku yidhaahdeen, waxaana loo soo diray qolada dhawaaqa iyo digniintii luud maqli weyday ee dembiilayaasha ku caddaaday. kuwaas ayaannu ku dejin doonnaa cadaab xanuun leh oo ay ku mutaysteen gafafka iyo foolxumada ay caadada ka dhigteen. naxdin baa nebi ibraahim ka badatay. wuxuu ka welwelay waxa qoladaa ku dhici doona. kolkaas buu malaa'igtii kula murmay, isagoo filaya in hoogga lala maagan yahay loo dibdhigo oo cadaabka loo muddeeyo. malaha wuxuu qudarraynayay inay eebbe u noqon doonaan oo ay ka hari doonaan dembiyada iyo foolxumada ay ku kacayaan. ama waxaa laga yaabaa inuu ka cabsanayey dhibaato inay halkaa ka soo gaadho luud oo ah nin muumina oo diidan waxay samaynayaan, waxa ay faraha kula jiraanna ka caraysan, sidaa darteedna aan mudnayn inay ciqaabi ku dhacdo. malaa'igtii ayaa dabadeed ibraahim u sheegtay inuu welwelka iska daayo oo caloolxumada iska saaro. eebbena aanu ugu dacweyn dadkaa caasinimada ku madax adeegay oo foolxumada macaansaday. waxay u sheegeen luud inaan dhibi taabanayn oo aan cadaab ku dhici doonin, isaga iyo reerkiisuna ay badbaadi doonaan, waase markii laga reebo haweenaydii u dhaxday oo iyadu gaalada ku tala ahayd lana saayiri jirtay. malaa'igtii inta ay ibraahim ka tageen ayay gaareen afaafka magaalada saduum, iyaga oo dhallinyaro qorxa badan isu ekaysiiyey. waxaa ku soo baxday gabar reerahooda biyo u dhaaminaysa. kolkaas bay weydiisteen inay marti geliso. ha yeeshee qoladeeda ayay uga baqday inay waxyeeleeyaan, waxayna isu aragtay qof aan badbaadintooda ku fillaan karin. inay aabbaheed kaalmaysatay ayay ku tashatay si uu martida ilaalintooda ugu qaybo. waxay ka codsatay bal halkooda inay sii joogaan si ay aabbaheed ugu tagto arrintana ugala tashato. aabbaheed markay u timidna waxay ku tidhi, aabbow, dhallinyaro adiga kuu socota ayaa magaalada iriddeeda ku sugan. waa dhallinyaro aanan weligay arag kuwa la quruxa, waxaana ka baqayaa qoladaadu inta ay ogaato inay ku soo qamaamaan dabadeedna ay sidaa kugu caabeeyaan. aabbahaasi nebi luud buu ahaa, inantuna gabar uu dhalay ayay ahayd. malahaygu wuxuu yahay luud inuu arrintaa la amankaagay oo uu gabadhiisa ka sii waraystay ragga ay soo aragtay, sida ugu fiican ee loo soori karo iyo sida ugu wacan ee loo badbaadin karo. waxaa suuragala inuu soo dhowayntooda ka warwareegay, inuu martigeliyo inuu ka leexleexday. waxaa laga yaabaa inuu ku tallamay inuu u cudur daarto amaba xaaladda uu ku jiray uu u bandhigo, sidaasna uu daafacooda kaga maarmo. wuxuu ku hamiyey inuu caraabiyo oo igudba ku yidhaahdo. hase yeeshee deeqsinimadii uu ku tilmaanaa ayaa gelgeshay kana adkaatay. markaas bay dhibaatooyinkii jirayba la yaraadeen, taagdarradiisuna ay u muuqan weyn. isaga oo isqarinaya oo qoladiisa ka dhuumanaya ayuu dhaqaaqay. wuxuu u socdaa martidiisa inuu gaadho inta aanay iyagu uga hormarin oo aanay la kulankooda u diidin. hadda ka hor ayay uga digeen inuu dadka eebbe la kulmo oo uu cidba martigeliyo. waxaan malaynayaa inay u arkeen cudur ba'an oo faafidiisa laga baqo iyo halis weyn oo fididdeeda laga dagaalamo. wuxuuse ahaa oo keliya nin necab oo col u ah foolxumada iyo dembiyada ay faraha kula jiraan. dabadeed luud oo isqarinaya ayaa dusay. wuxuu leexleexdaba malaa'igtii buu u tegey. weji furan ayuu ku soo dhoweeyey. markaas buu ka codsaday inay raacaan. aqalkiisii ayuu u hormaray, iyana waa dabagaleen. ha yeeshee isla markiiba wuu isla hadlay. cabsi oo idil baa isugu timid. martigelintooda ayaa aad ugu cuslaatay. wuxuu ka baqay qoladiisu inay ogaato inay ku soo degeen oo ay isaga marti u yihiin, dabadeedna isaga oo aan ka celin karin tolna u lahayn ay ku soo qamaamaan. walaacii intuu naftiisa kala dagaalamay ayuu u horkacay ilaa aqalkiisii, halkaasoo ay markii dambe gaareen. waxaan malaynayaa inuu qarintooda aad ugu dadaalay, isaga oo ka cabsanaya warkoodu inuu qoladiisa gaaro, dabadeedna ay dhacaan wixii uu ka walwalaayey. hase ahaatee afadiisa ayaa arrinta oo idinla socotay. iyada ayaa warkii martida haddiiba faafisay, qoladeedana u tabisay. isla markiibana kuwii oo degdegaya aadna u faraxsan ayaa soo hor dhoobtay qoyskii reer luud. luud baa argagaxay kolkuu arkay qoladiisii oo hor tuban. foolxumadoodii ayay maagan yihiin. waxay u socdaan facshadkii ay ku kici jireen inay martidiisa kula kacaan.
cabsida eebbe ayuu ku dhaariyey wuxuuna ku waaniyey dullinimadooda inay la dhuuntaan xumahana ay faraha ka qaadaan ha yeeshee waxay ahaayeen gaalo wada doqomo ah oo garaadkii laga siibay sidaa daraaddeed waanadiisii uma ay dheg taagin wixii uu u sheegayeyna way ka diideen markaas buu albaabkii ka xirtay wixii ay doonayeenna uu sidaa isaga hortaagay waxaa ii muuqda ama aan malaynayaa qoladii oo wejigooda yaxyaxi iyo sariigtii laga xayuubiyey ama waashay oo caqligii ka tegey dabadeedna si bareera wixii ay fali jireen meeshii ay tubnaayeen ku falay luud korkuu arkay in aysan warkiisa dhaga u lahayn waxa uu ugu yeerayana ay diidan yihiin ayuu tusaaleeyey dumarka eebba u xalaaleeyey inay u bayraan caadadaas laga yaqyaqsado inay ka haraan kana digtoonaadaan ciribxumada uga iman karaysa dembiyada foosha xun ee ay faraha kula jiraan waxaas loo sheegayeyse waxba uma noqon xumidii kama ay waantoomin kamana ay harin waxayba ku sii indhacdeegeen foolxumadii ay isu soo urursadeen iyo dembigii ba'naa ee ay ku soo tashadeen waxay yidhaahdeen luudow waad og tahay inaanaan dan ka lahayn dumar oo idilna aanaan rabin adiguna waxa aanu rabno dhab baad u taqaan kolkaas buu nebi luud nabadgelya korkiisa ha ahaatee wuxuu garan waayey wax alla wuxuu sameeyo rajadiisii baa soo gaabatay irdihii hididiirada ayaa ka soo oodmay wuxuu ka walwalay aadna uga walaacay sidii uu martidiisa ku badbaadin lahaa ee uu qoladiisa uga celin lahaa markaas buu yidhi haddii aan taag idiin hayn lahaa waxaan awoodi kari lahaa inaan gardarradiinna hor joogsado oo aan shartiinna ka badbaado haddii aan tol idiin haysan lahaa waan idin toosin lahaa idinna qabjabin lahaa ha yeeshee waxay ahaayeen qolo ay baadinimadu indhaha tirtay waddadii hanuunka ee uu tusay ma ay raacin jidkii xumaha ee uu ka duw islahaana kama ay leexan dembiyadii ay fali jireen ayay muquurteen xumihii ay ku kici jireenna way ku tartameen daruur murugo ayaa luud dul heehaabtay ciil iyo caro ayuu la googo'ay waxba wuu ka qaban waayey celcelintoodii ayuu ku daalay wuuna u taag waayey wuxuu arkay iyaga oo aqalkiisa soo jibaaxaya oo martidiisii soo weeraraya kuna tashan inay ceeb u soo jiidaan waanintooda marnaba ma uu hakran si walba oo lagu hor joogsan karana wuu isku dayey malaa'igtii kolkii aragtay walwalka naxdinta iyo walbahaarka uu la liito ayay ku yidhaahdeen luudow ergadii eebbaha ayaannu nahay waxaannu u nimid inaannu ku badbaadinno oo aannu gardarrada kaaga heelinno gaaladaasi waxba ku yeeli maayaane annaga ayaana jabinayna isla markiiba waxaa kuwii ceebta yaqiinnay ka meel waayey argagax iyo baqdin aan sohodima lahayn kolkaas bay cagaha wax ka dayeen iyaga oo baxsanaya una dhaaranaya luud isaga waa cusub ayaa u baryey eebbe ayaa uga maceynay dhibaatadii haysatay intuu gargaarkiisa ugu garbeeyey sidaa darteed buusan danba uga lahayn dhaarta gaalada iyo goodigii badnaa ee dembiilayaasha murugadii iyo walaacii hayey kolkuu ka roonaaday ayay malaa'igtii waxay luud ku amartay isaga iyo xigtadiisu habeenka gelinkiisa dambe inay ka dheelmadaan magaaladan cadhada eebbe ku dhacday ee ciqaabtiisa mutaysatay waxay ka reebeen afadii uu qabay inuu kaxaysto maxaa yeelay waxay ahayd haweenay laba wajiile ah oo qoladeedu waxa ay qabto ku raacsan sidaa darteedna cadaabka ay mudan doonaan iyaduna la mudan doonta muddada loo qabtay waa waaberiga waaberiguna waa wax dhowe yaan la sugi waayin sidii la faray ayay yeeleen luud iyo wixii ay ehel ahaayeenna way dheelmadeen iyaga oo aan ka xumayn kana murugoonayn ayay magaaladii ka baxeen markii ay ka fogaadeen ayuu amarkii eebbe u yimid waxaana ku soo degay cadaabkii qoobka cuslaa waxaa la gariiray dhulkii kolkaas baa la gabaaragadiyey oo inteedii sare uu eebbe inteedii hoose ka dhigay ururux dhagaxnaareed ah ayaa lagu soo daadiyey oo roob looga dhigay guryo ba'ay iyo aqalla haawanaya ayaa ka haray sababtuna waa foolxumooyinkii ay ku kacayeen waana abaalmarintii ay galabsadeen taasna wax lagu taamilo qaato ayaa ku sugan intooda badanna ma ay ahayn kuwo jiritaanka eebbahood rumaysnaa